وورشدي مقالة سنجرتي بيها معان لاس عنود ووتر سبلاي وسيداسي لو قربي ويهرد دي يودن ميلودو وقوش عادي تلسكي سومالي لانا يكوتالي شغانا وحا ugu dambeysay 6 Febraayo 2023 kadib kolkii ay xilli subaxa ciidamada Soomaaliland xoog uga eriyeen shaqaalihii shirkadda oo ay judhiiba magaalada biyaha ka jareen dhibaato badan baa soo gaadhay 200,000 oo qof oo Laas Caanood ku nool iyo ku dhawaad 20,000 oo guri bay in badan biyasiisay inta kalena ay shaqadooda waday shirkadani waxa ay adeegsanaysay tiknoolajiyadii ugu dambeysay caalamka oo ah warshado otomaatiga oo lagu sameeyay wadamada Yurub waxayna soo saari jirtay maalintii 5,000 oo mitir kubik oo biyo sifaysan laakiin Somaliland ayaa dhammaan wax walba oo muhiim ah warshada burburisay barna bilaqaysatay waxa lagu sameeyay wixii muhiimka ahaa sida deynibooyinka iyo maxaa la yiraahdaa qalabkii kale waa laga furfurtay wixii soo haray si aan loo isticmaalin ayaa iyadana dukun daako laga dhigay waa la jajabiyay dib baa loo soo qaatay saad aragteen xarkihii waa la jarjaray dhammaan fiilooyinkii shirkadda Lows waxa lagu maalgeliyay lacag dhan 6.5 milyan oo ay isku biiriyeen ganacsato iyo dhammaan dadka deegaanka iyagoo aan gacan kala dhigan lacagtaas waxa ku jirtay mid furdaamin ahaan loo siiyay Somaliland markii ay shirkadda ku samaysay asaaskii shirkadda iyo midha dhalintii himilada dadka deegaanka ee ahaa helitaanka biyo nadiif ah oo macaan 5 sano bay la dagaalamayeen xarig bay geysteen diidmay sameeyeen in biyaha la sameeyay iska hortaageen waxaan xasuustaa nin mas'uuliyiinta hadda jooga Somaliland ka mid ah maan wada hadalay oo yiri waxaan u caal heli meesaan maxad biyo qaraar magaalada iskaga soo daaya ma waa macaan baan ku soo deynaa baan ku wuxuu yiri ninkaasi caasimadu Hargeysa male Laas Caanood Hargeysa uma diidana biyo macaan iyo nooc kasta oo nolol wanaagsan tahay laakiin waatan dibindaabiyada Somaliland ay rabtay in ay ku sii maamusho gobolka Sool taasoo la dhacay waxa wixii lagu dhaxriday waxyaalaha la yaab kale ee aad arki doontaan waxa weeyaan meeshan waa meel biyood yani isagoo qofka askariga ah iyo xayawaanka iyo dadka iyo cid waliba ka cabirahdo waa biyuhu siyaasad ma galaan waxa daliil idinku ah qoraalada ay bulshada ku dhex sameeyaan arki doontaan Isaaq Power Somaliland SNM hadallo noocaas oo cunfi adeegsanaya waxbarsan bay ku qoreen laba qaab ayaa loo gabagabeeyay shirkadii biyaha macaan siin jirtay magaalada Laas Caanood midda koowaad waa in la qaatay qalabkii shirkadda intiisii badnayd sida qalabkii laboratoryga shirkadda oo ahaa mid casri ah iyo agabkiisii toolskii shirkadda lagaga howlgali jiray filtaradii chemicalkii kaydka ahaa matooradii yaryaraa ee shirkadda oo ahaa kuwa kala duwan qalabkii biyogelinta bamkii warshada kicinayay isbeerbaartiyadii oo la bilaqaystay qalabkii korontada iyo fiilooyinkii dabka qaybta maskaxda ee warshada ayaa iyadana la qaatay furnituriskii shirkadda iyo qaar kamid ah gaadiidkii shirkadda intaba waa la qaatay waxaana qaatay ciidankii Somaliland halkan oo kale waa qaybtii controlka generatorkan oo lagu xukumayay touch buu ahaa screen touch buu ahaa soo loo galay waxaan waa la jajabiyay sidoo kale waxa la burburiyay dhammaan warshadihii halka oo la sida kuwii biyo sifaynta oo ahaa nooc casri ah haddana ay ka harsan tahay qalfoofun dhanka kale to xafiisyadii lagu shaqeynayay xarumihii hagitaanka warshada taangiyadii biyaha iyo xitaa matooradii dabka ayaa laga dhigay dukum daakum si aan loo faa'iideysan oo maxaa la yiraahdaa loogu isticmaalin ay u jajabinayeen wakaas shirkaddan waxa ka howlgali jiray ku dhawaad 60 shaqaale ah oo isugu jira maamul iyo howlwadana kale waxayna soo saari jirtay biyo macaan oo ay ka faa'iideysan jireen dhammaan dadka ku nool gobolka Sool waxa meesha ku haray waa qashin aan faa'iido lahayn 100% waxa dhaami lahayd in laga qaado waxa dhaami lahayd inay rartaan intay gaariyaal u keenaan oo googooyaan oo maxaa la yiraahdaa bir qalx ahaan amaba intay furfuraan intaysan waxba yeelin ay maxaa la yiraahdaa meelahoodii la aadaan oo ku rakitaan saasa ka macna banaan lahayd xilligan waxa ka haray warshadii lagu maalgeliyay malaayiinta dollar qalfoofun in ay shaqaysana waxa ka horeysa in alif laga soo bilaabo wax kasta oo horay tacab loo geliyay iyadu waa burburtay laakiin waxaanu samaynaynaa in aynu warshado kale raadino si baahida biyaha loo daboolo sidii ay u burburtay iyo sidii u dhaawacantayna indhihiina idin macalina sawirada kaga bogan doontaan haddana dadka mujtamaca deegaanka waxaan ugu bushaareynaya insha Allah inaynu dib uga soo kaban doono biyaheena soo ceshan doono si dhib yar shirkadda biyaha Laas Caanood Water Supply
oo lows loogu yeero waxaa la aasaasay sanadkii 2013 intifaacsigoodana waxa uu bilowday sanadkii 2019 maantana iyada iyo boqolaal goobood oo kale ayaa la rabaa in mar kale dhexda loo xirto si laascaanood ay dhaqso ugaga soo kabato raatidii maamulkii halkan ka huleelay geystay adeegga casriga ay suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeegga suuqgeyn ka iibso wax kastoo aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeegga suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Golis app haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka moobilkaaga Golis app